safarka kulan loo ballansanaa ayay ku tageen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Soo dhaweyn baaqiyo kala duwan dhalisay saxaafadda iyo siyaasiyiinta Muqdisho dhaliil u muujiyeen. Kadib waxaa garoonka aadan caddeey Muqdisho ka bilowday kulankii ugu horeeyay ergada Mareykanka iyo wafuudda labada dhinac u bilaabatay. xog waraysi kooban kadib waxaa la guda galay xaajada doorashada iyo ambaqaadka hanaan wada hadal midhodhala oo ay dhinacyadu ku gaaraan caasimadda dalka. madaxda Jubbaland iyo Puntland waxay miiska soo saareen qodobo eedeyn iyo cabasho ayna ugu mudnayd ku eedeynta ballan la'aan ee madaxweyne Farmaajo maqnaanta ra'iisul wasaare iyo kameerista dowladda dhexe ee manfac dowladnimo. waxay ku adkaysteen inay u yimaadeen wada hadal dhaqaaqo oo barbilowgiisu noqdo dhuusamareeb laba ayagoo raacsaday in wanaag lagu gaari karo heshiis wadar ogola kaasoo ku dhaca muddo ku siman isbuuc ayna ogol yihiin in laga bilaabo wada hadallada halkii ay joogtay shirkii dhuusamareeb laba. dhanka safiirka Mareykanka oo la hadlayay ayaa laga soo xiganayaa inuu u sheegay madaxweynayaashii wafdigooda inaysan aqbali doonin in laga tallaabo heshiiska dhuusamareeb 3 waxaana bayaamiyay inuu yahay buddiga barnaamijka doorashada. wuxuu tibaaxay in tabasho uu tahay habsaan iyo haweenayna ka baaqsan shirkii dhuusamareeb 3 ayna ahayd madashaasi mid xasaasi oo ay ku jaangooyn lahaayeen hanaanka doorasho ee dalka tabashooyinka oo dhan lagu soo bandhigi lahaa. safiirku waxa uu ka gudoomay dhinacyada qoraallo muujinaya arrimaha tabashada ay ka qabaan iyo kuwa jahan doorashooyinka dalka. waxaana la wareeyo kulanka qaybka ahaan ka soo xiganay inay wakiilada caalamiga hoosta ka xariiqeen in mabaadi ahaan qodobada tabashada laga ambaqaadayo ay yihiin mirihii ka soo baxay dhuusamareeb 3 laakiin dowlad goboleedyadan ma aqoonsana qodobada inkastoo qaarkood ay aaminsan yihiin kuwa ay doonayeen gaar ahaan nooca doorashada dadban loona baahan yahay in lagu duldhiso arrimaha siyaasadda ee waqtigan. saaxiibada caalamigu waxay gudoomeen dhambaal siyaasadeed oo ka dalbay ku shaqaynta ajandayaal qorshaysan waxaana laga codsaday in qodobadii dhuusamareeb 3 la turxaan bixiyo lana gaaro heshiis aan soo noqod lahayn. waxayna xoguhu caddaynayeen wakiilada caalamiga ay wadajir ugu sheegeen madaxda safarka ahayd inaan Muqdisho laga laaban doonin ilaa heshiis wadajir ay soo saaraan dowlad goboleedyadan iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya muddada joogitaankuna noqonaya intaas afgarad la gaarayo. arrinta kale ee mar kale hoosta ka xariiqeen wakiilada caalamiga ayaa inaan marnaba dhinac gaarihi uusan qaadan karin go'aan gaar oo doorashada ku salaysan oo ay tahay in wadajir loo xaliyo tabashooyinka dhammaan dhinacyadu qabi karaan shacabkana aad loogu dhaweeyo hanaan doorasho. maqnaanta ra'iisul wasaaraha iyo awoodda baarlamaanku ayaa ubuucda walaahowga dhinacyada siyaasadda iyo saaxiibada salugsan dhuusamareeb 3 cabsida ugu badan hadda taagan waa inaysan baarlamaanka federaalku faragelin toos ah samaynin waana mid ka mid ah soo jeedinta madaxda safarka ay u sheegeen wakiilada caalamiga. baarlamaanka ayaa cabsi laga qabaa inay qaataan go'aamo siyaasadeed oo laga gaaro heshiiskii dhuusamareeb 3 iyadoo aysan soo bixin tallaabo wadajir oo ay mar kale hoosta ka xariiqaan dhammaan dhinacyada ku shirsan Muqdisho. natiijada ka soo bixi karta shirka Muqdisho ayaa u muuqata mid ka lifi doonta dhabo cusub iyo kala dhaqaaq siyaasadeed. darafyada saxiixayaasha dhuusamareeb 3 waxay wadaan oo loo xoojinaya doorkooda siyaasadeed iyo inaan la gees marin warmurtiyeedka ay qalinka ku duugeen. galaangal ku bilowday geynta golaha shacabka galka heshiiska ay goor hore bilaabeen. golaha sare ee loo qoondeeyay gobolka Banaadir ayay madaxweyne Farmaajo ku cadaadinayaan inuu saxiixo. ismuujinta ay wadaan 3 dowlad goboleed ee ku wajahan meel marinta mirihii dhuusamareeb 3 iyo matalaada gobolka Banaadir ayaa muuqaalka heshiis kastoo dhaca ku ah maxalal siyaasadeed. martiqaad hordhaca oo ku qabsoomay madal ay wada joogeen madaxweynaha federaalka iyo madaxweynayaasha labada dowlad goboleed oo xalay dhacday ayaa u badnayd salaan iyo kaftan dhable ku wajahan arrimaha siyaasadda ee isugu yimaadeen ka wada xaajoodyadooda. kala hoyasha waxay u muuqataan dhinac kastaaba uu raadsan doono hub iyo gurmad kaasoo liminta dhankiisa u jiidi doona. koox kastana waxay doonaysaa inay la carrawdo ama dib ula laabato libin siyaasadeed. tanaasulka ayaana noqon doona miraha ugu wanaagsan ee dhinacyada laga fili karo xilli dadka Soomaaliyeed ay indhaha ku hayaan kulamada lagu jaangooynayo masiirkooda ee wali ka socda miisaska dahaaran.